adduunka horumarkiisa iyo aakhiro horumarkeedu labaduba waxbarasho ku xidhan yihiin diintu saasay sheegaysaa haddaad rabto adduunka inaad horumarto iyo haddaad rabto aakhiro inaad horumartaba labaduba waxay ku xidhan tahay maxay waxbarashay ku xidhan tahay si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nebi aadam markii loo soo dirayay adduunka kan wacallama aadama alasmaa'a kullaha waxbaa la soo baray isagoo aqoon le buu yimi saas baa diintan islaamiga ah wixii ugu horreeyee soo dega iyadoo meesha ay ku soo degtay ahayd meel saxaaro ah oo aan aqooni ka jirin oo thaqaafa ka jirin oo waxba ka jirin oo dad aqoon tixgeliya dadka ugu fog ah ayaa haddana qur-aanka wixii u soo hordegay wuxuu ahaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam wax cilmiga iyo qalinka iyo waxaa ka warramaya bale suuraddii saddexaad ama afraad ee xataa qur-aankay soo degta haddana nuun waalqalam wamaa yasturuun bay yacni iyadoo laga yaabo carabi waxay u baahnayd inay ugu badnaan lahayd waxyaabo kale ayaa qur-aankii ugu soo hordegay wuxuu ka warramayaa maxay